wasaaradda caafimaadka Masar iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin wadajir ah oo ay soo saareen ku shaaciyay in qofkii ugu horreeyay ee qaba cudurka coronavirus laga helay dalka oo qofkaasina yahay qof ajnabi ah oo ka yimid dal kale. Warbixintu waxa ay sheegtay in baadhitaanadii lagu sameeyay dad kale oo lagu arkay calaamadaha cudurkan lagu ogaaday inaanay qabin cudurkan. Qoraalka wadajirka ay soo saareen wasaaradda iyo hay'addu muu cadeynin qofka laga helay cudurka ee ajnabiga ah, jinsiyadiisa, iyo inuu lab iyo dhadig yahay toona. Sidoo kale goorta uu dalka soo gaaray iyo goobta uu joogay toona ma aysan caddayn. Saraakiisha caafimaadka ayaa qofka laga helay cudurka ku qaaday dhooli gaashaaman oo ku geeyay cisbitaal meel gaar ah ayaana keligii la dhigay laguna tacaalayaa xaaladiisa caafimaad. Warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in qofkaas haatan xaaladiisu wanaagsan tahay. Wasaaradda caafimaadka Masar waxay sheegtay inay dhaqan gelisay tallaabooyin adag oo ka hortag ah oo dadka qofka la joogay iyagana la karantiilay si looga baadho cudurka. Hase ahaatee, baadhitaankii caddeeyay inaanu fayraskaasi ku dhicin, waxaanay intaa ku dartay in dadka iyo goobihii ay degganaayeen ba muddo 14 maalin ah ay karantiil noqon doonaan laguna hayn doono meel gooni ah, taasoo ah muddada lagu ogaado in fayraska uu bay'ada ku jiro iyo in kale. Sidoo kale waxaa la buufiyey dhismihii u deganaa qofkan ayna ku sugnaayeen dadkaas. Dr. Khalid Mujaahid oo ah la taliyaha wasiirka caafimaadka ee arrimaha warbaahinta oo ah afhayeenka rasmiga ee wasaaradda ayaa caddeeyay in wasaaraddu ku guuleysatay baadhitaanka oo ogaatay qofka ugu horreeyay oo ajnabi ah oo dalka soo gala in laga helay cudurka coronavirus. Madaxa xafiiska WHO ee dalka Masar ayaa warbixintu soo xigatay inuu yidhi Masar waxa ay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay ee heegan galay isla markaana meel mariyay tallaabooyinka hortagga iyo wax ka qabashada cudurkaasi. Waxaanay sidoo kale Masar ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay ee gobolka Bariga Dhexe ee hay'addu ugu deeqday agabka baadhitaanka ee lagu ogaado cudurka coronavirus ee dhowaan dilaacay.